haddii aanu ku bilowno waxaa maanta maxkamad la soo taagay Derek Chauvin oo ahaa askarigii booliiska ahaa ee jilibka qoorta kaga qabtay George Floyd oo ahaa ninkii bulshada madow ee Mareykanka ee ku dhintay xabsiga booliiska magaalada Minneapolis. Dilka George Floyd ayaa dhaliyay mudaharaadyo ballaaran oo ka dhacay gobollo badan oo Mareykanka ah. wariyaha VOA gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arrintan daba ka wareystay garyaqaan Amin Harun oo ku sugan magaalada Minneapolis. waad maasantay Maxamuud. maxkamadii u horeysay ee la keenay ayay ahayd dalka Mareykanka qofka markii la soo xidho wuxuu dastuurku xaq u siinayaa in maxkamad la soo taago muddo 36 saacadood ah ama 48 saacadood ah. maxkamadii horey waxaa looga heshiiyey qareenkiisa iyo iyo xirlaalintu waxay ku heshiiyeen maadaama arrimaha xanuunkan COVID-19 uu jiro in dib loo dhigo ilaa bishan 8 maanta ahayd. xabsi wuxuu ku jiraa federaal ah oo ka yara baxsan magaalada. maxkamadii horeysay ayaa la qabtay isaguna kama soo qayb gelin sida wuxuu kaga soo qayb galay televised ayuu kaga soo qayb galay oo TV ayuu ka soo muuqday. laakiin waxa meesha xaadir ku ahaa qareenkiisa iyo xeerlaalinta iyo xaakimka intuba way joogeen. kaliya waxaa lagaga hadlayay in eedeymaha loo soo jeediyo sida dastuurku qabo in loo sheego maxkamadda horteeda looga sheego in la weydiiyo in uu warqadii eedda helay iyo in laga hadlo xuquuqaha uu leeyahay mar haddii uu xidhan yahay xuquuq buu leeyahay qofku. intaa waxaa dheer in maanta la jaangooyey loona sheegay damaanadda uu ku soo bixi karo inta ay cadad la eg tahay. waa gartay lacagta damaanadda marka ilaa iyo intee la gaarsiiyey isaguse weli xabsiga miyuu ku jiraa mise waa la sii daayay? damaanad ayuu ku soo bixi karaa ayaa loo sheegay maanta. waxaana loo sheegay in haddii uu doonayo bilaa shuruud inuu banaanka ugu soo baxo oo maxkamadda inta dacwadu socoto oo gurigiisa u hoydo in uu dhigo lacag cadadkeedu yahay $1,250,000. haddii uu doonayo in uu soo baxo laakiin uusan lacagta wada awoodin $1 milyan hadduu dhigo waxaa loo ogolyahay inuu ku baxo shuruudo oo shuruudo waxaa kamid a shuruudada ka mid noqon kara lugta in looga xidho kale qalab lagula soconayo dhaqdhaqaaqiisa, in meelaha qaarkood uusan aadi karin, in meelaha dadka qaarkood uusan la xidhiidhi karin. shuruudo noocaas ayaa ka mid ah. marka ama shuruud buu ku bixi karaa ama shuruud la'aan. maadaama ahayd maxkamadii koowaad oo sida aad sheegtay waxyaabo kooban laga hadlay goormaa dib loo ballamay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la filayo in maxkamadda tan xigta looga wada hadlo maxay yihiin? maxkamadda xigta waxaa loo ballamay 29 bishan Juun hadda aan ku jirro. waxaana weli socda in dacwadii qaabkii loo maarayn lahaa in laga heshiiyo. waxaa weeye waa pre-trial hearing, macnaha trial intaan la gaarin ayaa waxaa la isla meel dhigayaa sida ugu habboon maxkamaddu u socon karto. waxaa qof walba uu fiirinayaa jadwalkiisa maalmaha ugu habboon ee ay diyaar u yihiin maxkamadda inay yimaadaan iyo cadaymihii in la isdhaafsado iyo in wixii negotiation ah ama haddii labada dhinac ay heshiis ay gaari karaan oo kale laga wada hadlo. waxaasoo dhan ayaa lagu xalinayaa. waa gartay Amin Harun, waxaa kaloo jira iyagana 3 askari oo la soo xiray oo iyagana lagu soo eedeeyay inay kaalin ku lahaayeen dilkii George Floyd. iyaga ma la maxkamadeeyay oo maxkamadda ma la keenay? haddiise la keenay ma damiin baa lagu daayay mise iyagu weli way xiran yihiin? maxamuudow, isniintii lasoo dhaafay ayaa maxkamadda la keenay 3 askari kale. sidan maanta Mr. Chauvin loo keenay oo kale ayaa loo keenay. waa loo sheegay eedeymaha loo haysto. sidoo kale damaanadii laga rabay waa loo sheegay mid walba $1 milyan oo damaanad ah ayaa laga codsaday. welina way xiran yihiin, ma aysan soo bixin. $1 milyan bay ka xigtay inay banaanka ku sugaan maxkamadda. waa tahay Amin, waxaa jirta dhinaca kale in dibadbaxyadii ka dhashay dilkii George Floyd weliba qalalaasaha xoogan gobolkan ka dhaliyey in haatan dhinacii siyaasadda ay arrintu u wareegtay oo qalalaaso siyaasadeed uu hadda ka jiro magaalada Minneapolis oo weliba duqa magaalada lagu cadaadinayo inuu kala diro ciidamada booliska magaalada Minneapolis. marka arrintaasi halkay ku dambeysay? maxaase ilaa iyo hadda tallaabo ah oo u qaaday duqa magaalada Minneapolis? ilaa iyo hadda waxaa soo baxaya in dad badan oo ka mid ah golaha deegaanka iyo weliba dad badan oo u ololaya arrimaha siyaasadda ama dadka advocateska ama activistka loo yaqaano ay soo jeedinayaan in isbedel weyn lagu sameeyo booliiska. weliba waxay leeyihiin isbedel caadi ah ma shaqaynaya, waa in la kala diro oo laga soo bilaabo nidaamka booliiska ee magaalada Minneapolis
eber laga soo bilaabo dib maaragtay loogu noqo sabuuradda iyo maaragtay khariidada qaabkii loo dhigi lahaa mayorka Minneapolis uu ka soo horjeeda taas wuxuuna sheegayaa shalay ayay ahayd mar dibadbax lagu weydiiyo su'aalo inuu diyaar yahay inuu kala diro booliiska ama lacagta uu ka jaro taasna wuu ka soo horjeesaday umuna arkin maaragtay magaalada markii uu fiiriyay baaxadeeda dadka ku nool tirada intay la yihiin dambiyada ka dhaca in ay tahay arrin saxa in booliiska la kala diro ama laga jarto dhaqaalaha laakiin taa beddelkeeda isagu wuxuu soo jeedinayay in booliiska iska beddel lagu sameeyo oo siyaasad cusub loo sameeyo booliiska si maaragtay cabashooyinka ay bulshadu qabto booliisku ay uga baxaan laakiin ilaa hadda waxaa la sheegayaa in 9 xubnood oo ka tirsan golaha deegaanku ay leeyihiin waa in gebi ahaanba la kala diraa booliiska taas ayaa marka hadda taagan welina arrin go'aan laga gaaray ma aha waxaa la isweydiinayaa waayo hala kala diray maxaa lagu bedelayaa qorshe inay hayaan 9 xubnood iyo in kale weli ma cadda waxaan ka wasugaynaa iyagu qorshahay bal la yimaadaan waxaa kaloo jirta in maaragtay haddii booliiska gebi ahaanba la kala dirayo loo baahan yahay dhammaan inay isku raacaan xubnaha golaha deegaanku haddii isku raaci waayaan in dadweynaha cod la geliyo oo maadaama sanad xilli doorasho ku jirno sanadkan in dadweynuhu ay maaragtay cod la geliyo in la kala diri kariyo in kale iyo wixii lagu bedeli lahaana dee lala yimaado kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo u warramay wariyahayga gobolkaasi Maxamuud Masacade